saaxiriinta iyo shayaadiinta ay adeegsadaan waxaa kaaga cad in aysan arxan iyo diin toona aysan lahayn xanuunka gabadhan ay sababta u ahaayeen alle ka sukow kuwaasoo cid kale markii ay wax ka qaadi waayeen sida waalidiinteeda ay si toosa u soo abaareen saqiirtan aan wax dembiga lahayn. ilaahay wuu awooday in uu saqiirtan hareer marsiiyo dhibaatada ay la damacsanaayeen, balse waxa uu ku camal tusayaa dadka waaweyn isla markaana u xaqiijinayaa eebbaweyne in shayaadiinta iyo saaxiriinta la shaqaystaba ay yihiin kuwo ka baxsan bini'aadamnimada iyo sharciga islaamka, iyadoona inta badan ay hoggaamiso lacagta ama hunguriga. ciddii markaasi dan ka yeelatana aysan ka eegaynin waxyaabahan qofka uu doonayo ma waxay yihiin wuxuu alla raali ka yahay iyo in kale. hase yeeshee bal aynu wada daabano sheekh maxamed jini ciijiye walaalka ka yar sheekh rusheeyare oo gudaha xarunta isgoyska baarwax ee magaalada muqdisho faraca dhexe daarutooba ku leeyahay sheekh rusheeyare ku dhex dabiibaya kalaamka alleh inantan yari. waxa aan ka hadlayo ee aan ku bidhaaminayo dhibaatooyinka saaxiriinta iyo shayaadiinta la shaqaysta ma ahan ujeedkayga ee waxaan doonayaa in aan ku dhex qeexo islaan gabadhan saqiirta ah ee carruurta ah ee hadal ku celisay ama aflagaadaysay garan weysay in gabadhu ay ka weyn tahay ayna dhali karto ayaa waxa ay la dhacday isheeda. sidaas li'ajligeeda waxaad meesha ka qaadan kartaan maadaama garashadaasi ay garan weysay ilmaha yar in ay weli aqli ay isku celin karaan aysan lahayn, ayaa waxaa laga yaabaa dadka u tegaya saaxiriinta inay noocan oo kale yihiin. waa duubistii farsamadii codayntii anigoo maxamed yuulka intaan bixinta lamada kulmi doona asxaabay nabadgelyo.